warqad markaasi la u muuqatay mid bahdilaad ku ah bulshada markaasi Soomaaliyeed wax markaasi 7 maalmood raggaasi ay u fadhiyaanna kama aysan soo bixin shirkaas kaasoo ah mid markaasi markii hore la isku mari waayay ugu dambeyntiina looga awood badiyay koox gaar ah oo iyagu markaasi dana gaar ah ka lahaa shirkan qalqalgelin iyo jahwareer ayaa markaasi shacabka geliyeen muddadii shirkaas oo socda raggaas in ay markaasi ummadda ka xishoo waayeen oo ay waqti lumis iyo qalqal ay meesha la fadhiyeen ayaa caddaatay diiwaankana u gashay taasoo ka dhigan mid looga awood badiyey siyaasiyiin damacu waalayay oo doonayay in dowladnimada Soomaaliya ay ka dhigaan mid maqaar saar ah oo iyaga uun gacanta ugu jirta taasoo ka dhigan mid mas'uuliyad markaasi aysan u muuqan warka ka soo baxay golaha wada tashiga qaran xubnaha loogu yeeray balse waxa markaasi soo baxay ahaayeen wax bulshada Soomaaliyeed ay la yaabeen oo la yaab iyo fadeexad ku noqotay haddaba waxaynu eegaynaa 7 qodob oo markaasi roobla looga adkaaday taasoo ka dhigan mid lagu soo daray shirka aba warmurtiyeedka balse ugu dambeyntii laga saaray kadib markii la isku mari waayay toddobadaasi qodob ayaa markaasi waxay kala ahaayeen qodobo la yaab leh oo warmurtiyeedka ku jira kow in amniga iyo sidoo kale wax ka bedelkaba oo xilligan xaq u leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qodobkaas waa laga saaray 2 in golaha uu cambaareeyo afgembigii la sheegay madaxweyne Farmaajo uu ku sameeyay Rooble qodobkaasi waa laga saaray 3 in doorashada laga dhiga hal deegaan doorasho qodobkaasi waa laga saaray 4 in markaasi